Duufaantii qorraxda ugu rabshadaha badnayd ee abid la ogaado ayaa ku dhufatay dhulka 1235 eberba. Dhacdo weyn oo cosmi ah 14 eber oo sano ka hor ayaa ahayd mid aad u xoog badan, waxay ku reebtay calaamad la garan karo meeraheena. Jiriddii geedaha qadiimiga ah ee qayb ahaan la fosilday iyo xudunta la qoday ee barafkii qarniyadii hore, saynisyahanadu waxay heleen caddayn muujinaysa nooc ka mid ah dhacdo bannaan oo ballaadhan oo dhacday qiyaastii 1235 eberbere. Shaqo cusub oo la isticmaalayo qaab si gaar ah loo horumariyey cimilada chemistry oo la yiraahdo socol 14 ayaa soo koobtay. Dembiilaha ka dambeeya qulqulka walxaha weyn ee wakhtigaas waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo ka timid qorraxda, oo dhulka ku tuurtay qaybo ka mid ah duufaanta geomagnetic ugu weyn ee aan haysano diiwaanka. Marka la barbardhigo dhacdadii ugu weynayd ee casriga ah, duufaantii 2 dhacdadii hore ee 1235 eberbere waxay ka badan tahay 5 eber jeer marka loo eego qiyaastayada, ayuu yiri physicist Ksenia Golubenko oo ka tirsan jaamacadda Oulu ee Finland. Duufaanta geomagnetic waa dhacdo inta badan la xiriirta kororka tirada badan ee kasaarida, ayrin weyn oo balaayiin tan oo balaasma ah oo ku qarsan dhul birlab ah laga soo bilaabo qorraxda. Marka qulqulka walxahan uu ku soo qulqulo dhulka, dhammaan noocyada kala duwan ee shenaniganska ayaa iman kara. Aurora australis iyo borealis waa calaamadaha ugu caansan ee duufaanta juqraafiyeedka, laakiin carqaladaha noocan oo kale ah waxay halis geli karaan marka lagu daro tiknoolajiyadayada. Tusaalaha ugu caansan waa dhacdadii Arrington ee Sebtembar 1859, taasoo qulqulka jawiga kadibna uu ku socday oogada dhulka, tirtiray nidaamyada telegraf ee adduunka oo dhan, kicinaya dab iyo qas. Duufaan kale oo geomagnetic weyn oo dhacday 1989kii waxay aragtay koronto badan oo burburay iyo carqaladayn. Sawir muujinaya qarax cadceedda oo ku wajahan dhulka. NASA, waxaan ognahay in qorraxdu ay awood u leedahay inay soo baxaan cadho aad u weyn, inkastoo. Laakiin sababta oo ah diiwaanada bini'aadamka ee duufaanada qorraxda ayaa sida ugu fiican u jilicsan, way adag tahay in la qiyaaso inta ay leeg tahay duufaanta geomagnetic. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah duufaanada geomagnetic waa inay si ku meel gaar ah u kordhiyaan cadadka kaarboon 14 shucaac ah ee sida joogtada ah uga daaya dhulka. Kaarboonkan waxaa lagu soo saaraa jawiga sare marka qaybaha koofiyadaha, sida qaybaha ay qorraxdu soo saartay, ay la falgalaan qaybaha atmospheric. Kaarboon 14 waxaa lagu dhex daraa noolaha, sida geedaha iyo xayawaanka, sababta oo ah waxa uu qudhuntaa heer la og yahay, saynisyahanadu waxa ay u isticmaali karaan si ay u ogaadaan goorta noolahani noolaayeen. Halkan waa halka ay ka xiiso leedahay, koronto weyn oo kaarboon 14 ah oo ku jira giraanta geedka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya in la ogaado, laakiin la yareeyo taariikhda duufaanta geomagnetic. Tani waa waxa ay cilmi baarayaashu sameeyeen, si ay u aqoonsadaan duufaan weyn oo geomagnetic ah 14 eber oo sano ka hor, sida lagu sharaxay warqad 2 Dhacdooyinka kale ee noocaan ah waxaa la raadraacay ilaa 994 66 eberbere, 5259 iyo 717 iyadoo kuwii ugu dambeeyey iyo hore loo yaqaan ay ahaayeen 774. Dhacdada 1235 eberbere, si kastaba ha ahaatee, way ka duwan tahay kuwa kale, taas oo ah sababta ay kooxdu u baahday inay naqshadeeyaan qaab si ay si fiican u fahmaan. Dhacdadii qadiimiga ahayd ee 1235 eberbere waa dhacdada kaliya ee loo yaqaano qorraxda xad-dhaafka ah ee ka baxsan xilligii Holoene, ee la soo dhaafay 12 eber sano oo cimilo diiran deggan, ayuu yiri Golubenko. Habkayaga cusub wuxuu kor u qaadayaa xadidaadda hadda jirta ee Holoene, wuxuuna kordhiyaa awoodayada aan ku falanqayno xogta kaarboonka xitaa xaaladaha cimilada glacial. Cilmi baadhayaashu waxay tijaabiyeen qaabkooda dhacdadii 774 kadibna, mar ay soo celisay natiijooyin sax ah, waxay u adeegsadeen inay falanqeeyaan xogta laga soo bilaabo 1235 eberbere. Tani waxay u oggolaatay inay baadhaan xoogga, wakhtiga, iyo saamaynta dhuleed ee duufaanta, iyagoo xaqiijinaya inay ahayd duufaanta walxaha cadceedda ugu weyn ee aan ognahay. Dhacdadan waxa ay abuuraysaa xaalad cusub oo ugu xun, ayuu yiri Golubenko. Fahamka miisaankeeda ayaa muhiim u ah qiimaynta khatarta ka iman karta duufaanada qorraxda mustaqbalka ee kaabayaasha casriga ah sida dayax-gacmeedyada, korontada, iyo hababka isgaarsiinta.